السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هل تادنا داونيسان واكون على اوفيشال فضلنا هداك عصبتها هي لايك شير سبسكرايب لبدات اصحابتا فرو جنبل التصاد ونقد داودا اورا داودا برنامجينا اي معلوماتنا ما سنه برنامجتا قبناها كون على اوفيشال waxaad ku maqli doontiin qodobo dhowr ah barnaamijka intuu socdo waxaa idin tabi doono anoo ah Kuncelo Boqortooyo. Barnaamijka qubanaha Kuncelo official waxaad ku maqli doontiin waxaa soo dhamaaday xilhaynta madaxweynaha dowladda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo tu'ad 8 February oo ah maalintii la doortay maanta oo kale waxaa la doortay madaxweynaha Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo dhammaan gobolada dalka iyo inta ay Soomaaliya dadto ayaa loo sacabtumay balse 4 sano kadib waxaa dhamaaday xiltiisa dhammaan hay'adaha uu saray dowladda hadii ahaareed baarlamaanka aqalka sare iyo dhammaan hay'adaha dowladda ayaa xiltooda dhamaaday welina waxba doorasho ma muuqato waxaa dhuusan maraab istuutada dhammaan dowlad goboleedyada Soomaaliya waxaa halkaas loo tashanayaa aayaha iyo mustaqbalka Soomaaliya ee ka mid ah doorashooyinka soo socda waxaa wali ku fahmi lahayd qodobada doorashooyinka iyo arinta gado madaxweynaha Jubbaland Axmed Islaam Axmedow ayaa sheegay in gado loo soo wareejiyo Jubbaland balse waxaa ka diiday arintaas Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ah madaxweynaha xiltiisii dhamaanayo waxaa la sheegay in uu isfahmi waay oo soo dhaxdalay labada madaxweyne ee Farmaajo iyo Axmed Islaam Axmedow ee madaxweynaha Jubbaland inta uu hayay xilka madaxweynenimo dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa waxa uu ku fashilmay qodobo dhowr ah ee ka mid tahay wax arinta amniga magaalada Muqdisho waxaa qaraxii uu qasaaraha badnaa oo dhacay inta uu hayay xilka madaxweynenimo qaraxii ka dhacay 2017 sabab ay ku dhinteen 800 oo qof waxaa xarunta dowladda hoose loo qarxiyay Allah u naxariistay injineer Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan Yariso iyo gudoomiyaal degmooyin haba uu dambeysay qaraxii ka dhacay Hotel Afriid maalmo ka hor ee uu ka dhintay Janaal Galaal oo lagu eedeynaayo in ay dileen ciidamo ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya oo madaxweynaha ka ahaa Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxa uu ku fashilmay waxa uu dhiibay arintii in uu u gacan galiyay Cabdiriin qalbi dhagax dowladda Itoobiya waxa uu kale oo ku fashilmay in uu wada hadallo uu la furo dowladda Jamhuuriyadda Soomaaliland balse waxa uu kale ku fashilmay in uu la sii shaqeeyo xukuumadda Xasan Cali Khayre oo lagu riday 7 daqiiqo wax ka yar asina 1 daqiiqo wax ka yar oo ku aqbalay in ay dhacdo xukuumaddii Xasan Cali Khayre waxa uu weerar ku qaaday Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo ah siyaasi Soomaaliyeed Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa xukuumaddiisa waxa uu tahay mid fashilantay oo fashilka soo dhamaatay waayaheedii 4 sano ah maadaama waddanka xaalad amni xumo xaalad qalqal siyaasadeed waxa uu ku fashilmay in uu la heshiiyo maamul goboleedyada sida waxa uu dhowr maamul goboleed u dhiibtay dad ay asada hoostada balse waxa uu wali fahmi laayahay labada is-fahmi way dhaxgalay labada maamul Puntland iyo Jubbaland oo ilaa hadda ay murankooda socoto doorashadana laga qaban laayahay xaalka Soomaaliya waxa uu socdaa mid ay jid ah
balse waxa alle ka baryanaa in uu xilkan u qabto madaxweyne caadil ah oo dadka dalka diintaba si wanaagsan wax u qabta. aad iyo aad u mahadsantahay daawashada barnaamijkeena qubanaha kulan ee official oo aan diiradda u saarayna caawada xilta ka dhamaaday mudane maxamed cabdilaahi farmaajo. hadaa ku cusub tahay subscribe like comment share la wadaad asxaabtaada programmelata noqo daawada hore ee daawada barnaamijyadeena aan halkan ku soo gudbino mahadsanid.